Yo, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعباس جنرال عباس سيمبا مركل وحي سبدن صاحب دمانتين واني سلامي سنان كديب صاحب يا اسبوع وروح عن صودي حلقات ku saabsan diilaaga shaadinta taqyiimkiina waa fiiriyay xalqadaas ugu bixisay laakiin markii kadib aan fiiriyay badan xalqada badan waxa fiiribteen oo xiisa aad u leedihiin ana u heesay waxa ogaaday inuu weerarkii tetigaska xiisa aad u heesay laakiin waana nigu tixgeliyo dooqiino aan raacay laakiin marka aniga taqyiim aan sameeyay qof walba dooqiisa ka ciyaarayo oo aan soo dhigay baad boostiga footiga marka inaan fiiriyay qof walba dooqiisa ka ciyaarayo inaan rabay inuu ogaado kadib waxa fiiriyay ani xalqad gaar ah ugu talagalay diilaaga shaadinta inaan soo dhigo xalqo laga ogaanayo shaadinta xogtooda oo dhan iyo macnaha shaadinta ay ka imaadeen intee maxaa sababay in shaadinta ay imaadaan waxaas oo dhan xarib xalqo gaar ah xogtooda ka imaanaya inaan nisiyo laakiin waana badatay dadkaas badan oo diilaaga shaadinta oo rabay in xiiso ku hayaan waana arkay laakiin kadibna waxaas dhaxay dad badan oo u baahan yihiin in weerarka tagsiiso ka ogaadaan taas xalqadaas gooniyo noo tahay waa keen rabaaya waa keen xalqadaas gooniyo noo tahay hadaba ogaado laakiin xalqada hada weerarka tagsiiska aan ugu talagalay waxa waa xalqadaas macaan u ogaayeen maskaxda focus walba asaartid taabo walba aqadiisa si fiican u fiirisid ana markii badan ma jeceli oo waxa caadi nilka sheekeeyo oo waxa ka fahmi weysid ma jeceli qasas aan mihi waana ogaado qaar badan wax nii khulaasinayaan oo waxba iska dhigaysanayeen ana fahmaysiin waa arkay laakiin ani ahaan waa in wax walba si fiican u fahantiin oo aad oo macnaha focus nigu saaran waa muhiim soo sidaas daraadeed marka xalqadan aan ugu talagalay xalqadan waxa waaye xalqada weerarka tagsiiska xalqada saddexaad soo laba xalqa kamid ah macna isku dar waan soo gaabiyay waan soo habeeyay taas daraadeed marka oo halaas waqti qaadatay codkayga doon nadiifna ku ay saaxibi taasna igraal noqda oo omega iga laabay inta ka habeenay oo waqti way qaadanaa insha Allah xalqadeena kala doontina rajay like iyo subscribe kana saaxibi yahay naga lubina teeda kale akhyaarta kale oo TikTok aan ogeyn saaxibi TikTok gala oo page Abbas Simba ku qoran ama link caadi meesha ka raaca oo gudaha ka gala si aad u tixraadin oo xaqana nala socdo insha Allah sidoo kale ku saliya xabiibkeena rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xalqadeen inuu bilaabo俺たちがやることはただ一つ戦えmuddo 100 sano aadana waxay ku nool yihiin saddex darbi oo kala ah Maria iyo Rosie Sina waa saddex darbi muddo 100 sano Tetris aadana ka difaacisay darbi walba wuxuu leeyahay afar qaaco sida qalcada sheegaashiina darbiga Maria ku soo arkaynay marka hore waxa soo baxay Tetris weyn wuxuu burburiyay darbigii sheegaashiina kabacdi waxa soo baxay Tetris gaashaanka wuxuu burburiyay darbigii weynaa ee Maria sidaasna waxa lagu qabsaday darbiga Maria gudihiisa oo dhan haddana waxa haray darbiga Rosie darbiga Sina xaliyay aadana darbiga Rosie ku soo badbaadin boqorku wuxuu u qaybshay laba qaybood dad beeraha faraya si cunto loo helo iyo dad dagaalka loo diray si loo soo xoreeyo darbiga Maria suuraysan kartii halkii dagaalka u diray waxay ahayd 250 oo qof halkii ka soo haray 100 oo kaliya waxaana kamid ah Armin Awogis urashada naftooda waxa kaliya lagu faa'iido waxay ahayd in cadadka aadanaha darbiga Rosie ku sugnaa oo cuntadooda ku filnaatay iyo caruurtooda dadka waalidiintooda oo dhan ay nool yihiin maas ay ku sugan yihiin maasna waxa ku sugnaa Armin iyo Mikasa iyo Eren Mikasa iyo Armin iyo Eren markaas waxay sugnaayeen qalcad yar oo ku taal darbiga Rosie Eren markaas wuxuu ku yiroonaya riixun oo riidas abiisu ku dhahay daarabti in Mikasa iyo Armin ina badbaadiso waa inayna wax ku dhahay sameeysaa Eren markaas wuxuu soo kaca furaha abiisu ku siinay dhahay oo qortiisa ugu jiro 5 sano kadib Mikasa iyo Armin iyo Eren waxay ku sugan yihiin xiriirada tababarka sida generationka cusub u qayb gal lahaayeen askartu waxay u kala baxaan saddex nooc koowaad askarta boqorka ilaaliyaan oo difaacaan shaqadooda kaliya waa inay boqorka difaacaan ee ilaaliyaan kaliya waxa loo doortaa 10 qof labuuskooda dib Ismaaciil kale lagu daro kooxda labaad waa kooxda darbiga askarta shaqadoodu waa inay darbiga difaacan oo Tetriska darbiga soo gudbaya oo ay ka fiiriyaan waxaana kamid ah Hannes oo Mikasa iyo Armin badbaadinayay kooxda saddexaad waa kooxda saaminta waa kooxda ugu jecel yahay looga cabsi badan yahay shaqadoodu waa shaqada u halista badan waxay u baxayaan dibadda si ay u soo ogaadaan Tetriska xogtooda informationkooda waana Eren kooxda ugu jecel yahay oo rabo Tetriska inuu arguusado Eren 5 sano tababar wuxuu ku qaatay ODM gearka aaladan soo sifan ugu barto oo arguusado Tetriska aaladan barashadeeda aad ay u adag tahay laakiin waxay kaaga baahan tahay sifan in waqti geliso oo u barato si aad ugu duusho waxa u baahan tahay inaad taabto batanka gacantaada ku jira kadibna silig oo ku soo baxay sidaas meel oo ku heesto kara oo kacay markaas oksijiinka oo markaa ku jira kor ku qaadayo laakiin sidoo kale waxa la baahan yahay inaad barato xirfadda Tetriska aad ku dil lahayd in aad barato meesha ka jilciin aad ogaato Tetriska badana wali yaqaan meesha ka jilciin imaha laga warsan karo laakiin shakhsana kor waxa soo baxay Tetra weyn dhirkiisa gaara 50 mitir mana la yaqaan halku ka imaaday laakiin Tetranada kale markii wajiga sawaariikhda lagu dhufta kama dhintaan meesha kaliya lagu waasan karna waa surka dhuunta dhinaca gadaal inaad diisho waxa u baahan tahay ODM gearka laba seef oo adeegsanaysid laakiin sababtay meesha ugu jilciin lama oga 5 sano dhalinyarta tababaraya dhammaantood tababarka u dhamaatay hadda kaliya waxa hara kooxay kala dooran lahaayeen
Eren dhalinyarta hortooda wuxuu ku leeyahay waxa ku biira aniga kooxda saaminta dhalinyarada meesha joogta dhammaantood waxay leeyahay Eren usoo dooran karo kooxda oo boqorka ilaalinaas oo ku doorto kooxda saaminta aniga waxaan ku doorto wuxuu Tetaniska dhammaantood inaa baabi'iyo weligeyga derbiyan xabsi kuma ahaanayo aniga xor aan ahay aadanaha xurimadooda gacanteeda ku jirtaa waaw Eren waa gees walle dhalinyaro badan dhiirigelin intay ka qaadanayaan Eren waxay ula biirayaan kooxda saaminta Eren iyo asxaabtiisa markaas waxaa loo diray fiireen gaar ah ay fiirinayaan qaacada derbiga Trust Eren markaas wuxuu leeyahay Tetaniska xurimada ka xoroobi lahayn hadday gacanteena ku jirtaa isla markaas hadalkaas sidoo Eren hamar waxa heshiis ka soo baxay Tetanka weyn oo dhalinyarada meesha joog dhan shoogay qaadeen 5 sano wixii dhacay oo mar kale soo laabtay hal mar intuu iska jiiday wuxuu burburinaa qalacadii derbiga yaraa ee Trust 5 sano ka hor wuxuu ku sameeyay magaalada Shiganshina ayuu wuxuu rabaa isla wixii naftirkeeda inuu ka sameeyo magaalada Trust yarmaha ku sugan tajbig soo gaarto suuxa laakiinse gabar Sasha lagu magacaabo intay ka dibgaatay soo qabanay waaw gabadha Sasha lagu magacaabo xirfaday baleedahay Eren hooyadiisa iyo dhibaatooyinka hore intuu soo xasuusto wuxuu leeyahay ma wixii ma markan noo soo laabtay Eren markaas intuu safety isla baxo wuxuu leeyahay maanta fursada kugu dil lahaa banaanka imaatay yo 5 sano uu ku arkay waa ku xiisaba laakiin samalkameedkaaga gacantaada ku soo doonatay Eren intuu hamar cararo oo boodo wuxuu ka aaday dhinaca surka laakiin Tetanka weyn wuxuu soo deeyaa qac kuleel ah oo moodo sida foornada oo kale Eren intuu soo hal mar ku ciyay oo hal mar mirqa Tetanka weyn asigoo saas u weyn soo hal mar ku mirqay waa wax la yaabo albaabkan wuxuu u furay Tetaniska si ay u soo galaan Eren markaas wuxuu asxaabtiisa u laabanaa Mikasa arma sida audio ingirka gaas ugu soo shubtaan si ay u difaacaan dadka magaalada qalacada Trust ku dhex jiraan Eren iyo asxaabtiisa wuxuu ku shogsay halaan wadada si naftooda u ilaalinayaan ayaga mar dhow tababar ka soo baxay Eren wuxuu leeyahay waa qaban karnaa waxaas ay naftiina dhiirgeliya Eren Tetan inta ku soo boodo ayaa waxa ka badbaadiyay Armin laakiin Tetanka wuxuu afkiis ku qabsan mid asxaabtooda oo asigoo nool oo dhahay badbaadiya Tetankana hore u sii laqaa Eren intuu xanaaq wuxuu leeyahay sidee sidaan ugu cuni kartaane yaa awood ku sii inaad sidaas samayso Armin iyo asxaabta kale way ka tabtagayaan intuu Eren hawada ku jiro ayaa waxa ka imaana Tetan kale lugtoona ka goosana Eren guri korkiisa wuxuu dhacay si xanuun badan oo wallahi in aswaash ma ahayn Eren qolada kale asxaabtiisa wuxuu u dhimanayay hal Arminna argagax intuu qaado miis iska fadhiisana war waxaan waa horornimo niyo ayaga wali kooxda saaminta tama noqonin sidaas ay tahay dhammaantood wayna dhinteen Arminna intuu dhiibay ayaa Tetan inuu cuno damacsan Eren asoo markaas dhaawacan wuxuu ku fikiraa buugi Armin maalintaas tusayay buugas oo ku qoran derbiga dibadiisa waxa ka jira buuro dhul saxara qurux badan iyo ina jirto wax la dhahayo bad Eren wuxuu leeyahay anigu waxaas aan arkin inaan dhimanaynin Eren intuu Tetanka Armin laqin intuu ka tabtago ayuu intuu ka soo qabto banaanka u soo bixinaa Eren asoo Tetanka afkiisa markaas soo iska celinayo wuxuu leeyahay Armin soo adiga balan igama qaadan inaan arkeen banaanka dibadda wax ka jira soo adiga balan igama qaadin inuu jiro wax bad la dhahayo iyo buuro iyo jasiirado badan inay jirto Armin inuu wax aniga arka u baahanahay intaana dhiman ka hor waa inuu wax arkaa Armin wuxuu leeyahay gacantiisa qaba marka hore hadalka sano dambeeyay intuu gacantiisa qaban ayaa hamar Tetanka Eren goosana Arminna qeylada ka baxay shoog ayuu ka qaadaa Mikasa waxay la socontahay kabtaka derbiga kooxda ilaaliya sidaas ay tahayna waxay dareentay inuu dhibaato u jiro jaceelka ay u qabtay ayaa u sheegay Eren dhibaatadiisa halka dadka badan loo wareejiyay darkii saddexaad iyo siina furitaanka askarta maanta naftooda ay horeen ayaa lagu soo gaaray dadka in la badbaadiyo Armin wuxuu u maanaa yar lagu magacaabo Kone oo weydiinaya dadka kale iyo dhalinyarada kale Eren aaway laakiinse ayaga isku dhex qasan oo gaas ay isticmaalayeen ka dhamaaday dalbar ayaga kamidna waa la baabi'iyay dibka ugu weyn waxay tahay gaas ma leh oo dhiigirka gaaska lagu isticmaalay xataa ka dhamaaday meeshii laga doonan lahayn Tetanka ku hareersan saladii meeshii gaas ku sugnaayna ayaga cabsi qababa inay soo baxan ka baqayaan Mikasa oo ma imaato oo weydiinayso dhalinyarada Eren Armin Armin weydii Armin oo ka naxsan Mikasa qaabka uu sheegi lahaa inuu Eren Tetan cunay Mikasa markii Armin u maato waxay leedahay aawo Eren Armin wuxuu leeyahay Mikasa Iran noqo Eren Tetan cunay waan badbaadin waay Eren daradeeda Tetan cunay Iran noqo Mikasa dhalinyarada hortooda intay istaagtay waxay leedahay dhamaantii waa niga awood badanahay Tetaniskan dhamaantood ana baabi'inayo adika miyina jooga sida caruurta oo kale wallahi Mikasa waa geesiyad hore inuu sii baxay Mijan lagu magacaabo wuxuu leeyahay gabadhaas karti ku jiro adiga karti lagu jirto miyaa in soo wadan Tetan soo baabi'inaynahay Mikasa intee duushay Tetaniska haladan u diloosa wallahi Mikasa caadi ma aha laakiin odi ingirka gaaska ka dhamaanayo gaas badan oo zaid ay isticmaalaysa Mikasa markaas dhulka ku dhacay Jana markaas wuxuu leeyahay gabadha caawiyo taga aniga waxba kama qabad kariyay Mikasa markaas Tetan soo dhawaanayo ayadana Eren ku fikiroosa Tetanka ma gacanta la soo aadan ayadana waa iska difaacay ayadii inay isdhiibtay rabta laakiin jirkeeda diidayo dhiigeeda familkeeda ku jiro ay u diiday inay dhimato markaas Tetan kala gadaasheeda ka soo baxay oo gabadha laba Tetan uma adkaysan kartay ayadana Eren iyo cadeyntiisa ku fikiroosa waxay leedahay dad imana Eren daraadiis waa inuu dhintaa laakiinse waxaa dhacay wax cajiib ah hal mar Tetanka gadaasheeda joogay intuu imaado Tetanka kala feer u gelina Mikasa aad u yaabay oo markii uu horeeyay la arkay Tetan qof bin aadan difaacayo laakiin shaqalkiisa Tetanka wuxuu u maqlay inuu aad ugu xanaaqsan yahay Tetanada kale Armin intuu imaado meesha Mikasa ka wada waxay leeyihiin Tetanka muxuu yahay bishishanka qaadanaya isagoo gacmihiisa isku toosinaya feerka u gelina wuxuu igiyaas inuu qof bin aadan Jan iyo asxaabtiisa waxay u baahan inay ka gudbaan Tetanada si ay u tagaan meesha gaaska inta tabartooda intay adeegsadaan meesha gaaska xog galayaan si xoog ah Jan markuu meesha gal wuxuu la kulmaa cawaantii meesha ku gambanaysay oo gaaska haayeen Jan mid kamid inuu feer ugu wuxuu leeyahay war wax faa'iido leedahay ma jiro asxaabtiina banaanka ku baaba'ooyin adikana meeshana ku dhuubanaysa miya adika way ku Tetaniska inay cunaan lagu talagalay baqtiyaalihow laba Tetan banaanka jooga buuq intay maqlaan meesha xog soo galayaan oo Jan wuxuu leeyahay in sidaan ay ugu dhamaatay naftiisa meeshana ku egta isla markaas Tetanka Mikasa badbaadinaya ayaa meesha xog soo galay labada Tetan hal feer ku haatina waaw war Tetanka caadi ma bahe
كوني iyo Mikasa Armin qalaasay ka faa'iideysanayaan wayna soo galayaan jaa intuu leeyahay wuxuu leeyahay kala saab meeshan ku imaateen Koni wuxuu leeyahay Tetikas muu jeedimiya Supermanka asaa Titanada naga difaacay sidaas meeshan ku imaateen Titanada ma ku sugnaayeen kaligiis ayaa baabi'inooyay Mikasa wuxuu leeyahay gaaska waa inaa soo qaadanaysaa meeshan ugu baxsano kuwa inaa qorshe u degnaa oo gurub u leeyna Armin oo meesha ugu maskax badan wuxuu leeyahay leedayna qoryaha adeegsanayna meesha saaka tawiyana adigna gadaal ugu maanaysiin gadaal ka didaysiin qorshihiina wuu hirgeliyay sidaas ay gaaska soo qaateen waaw wax kale iga dheh dibadda markii uu soo baxay arkay Tetika kaligiis lagu goorto nolosha lagu cunayo Mikasana wuxuu leeyahay wuu xanuunsanaya sidaas ay tahayna wuxuu naqsan yahay maxay tahay Titan ayaga kamid intuu arko hamar intuu ku ordo oo ku duufo oo doonta qaniina sida waran oo kala wana uu tuuro qaylada oo Titan kana oo qaylinayo waxa naaq Titan kala uu qabo energy-ga intuu ku dhamaado hamar dhulka ku dhacaa Mikasa iyo Armin Tetik markay focus-kooda saaraan waxay arkayaan qof inuu ka soo baxay qofkaasna oo ah Eren oo waa ku barya run waayay Mikasa intay soo orday hal mar habsiina waxay xaqiijinayaan inuu nool yahay in kala qalbigeega fiirinay Mikasna farxadeeda loo inta lagu soo koobi karo Mikasa si walba dadka hortooda karti uu muujiso Eren markii la joogto waxay muujisaa mashaacirkeeda saxda bananka keenta waxayna u oysay zaid ah markay ogaateen inuu Eren nool yahay Eren waa gabar ugu dambeyntii Armin wuxuu leeyahay Eren dhaawac badan soo gaaray gacanta iyo lugta way ka go'sanaayeen sidoo gacantiisa ku caafimaad ku reysatay laakiin Armin aad ugu farxay taas Jan wuxuu leeyahay taas macnaheedu ay tahay wax Titaniska meeshan joogo inuu Eren baabi'iyay Eren ayaa Tetika xanaaq badna gudihiisa ku jiro wax Titaniska meesha joogo inuu asaab baabi'iyay sidoo Eren ku awoodo inuu sidaas sameeyo waxaas oo dhan wax ku ogaa doona xalqooyinka soo socda insha Allah xalqadaha hada ka heshay saaxiibayaal like iyo subscribe noo saara halii dhalinyarada dhibaatada ka badbaadina ugu gudbin darbiga Siina wax badan ka baran doono kooxda caanka oo aad loogu jecel yahay iyo aadanaha uga awood badan ee loo adeegsado Titanic insha Allah xalqada soo socota waxay noqon doontaa xalqo aad u xiiso badan